waqtigu isguraba saaka waa doorashadii ها ساكا ودورشدي sugaa sii quraacatay adoo safradaysan tagin ومقراع بين dhawaysa saaka kala dhadhama jireen warunta wallahi saaka kala dhadhan kugu taga siida baldaga oo jirka ma sii tunta kulli aanu madaxweynaha la soo noqonayaa hadaan soo wada baxaynaa madaxweyne shirkaamada iyo dirbaanada iyo mashxaradaha hadaan u baxaynaa saasaan ka rabaa haddana waan sii baxayaa soo duceeya ducadu kala joogsi ma leh albaabkana soo xidha alla ku guulay indha soo baxay uu leeyahay dalkiyo dadka dugsi u tahay dawladnimo dalkiyo dadka dugsi u tahay dawladnimo difaac midnimada u tahay dawladnimo doorashadu way bilaabatay aan daawado bismillaah anigoo ah gudoomiyaha golaha baarlamaanka ee dawlad goboleedka Durdur State waxaan maanta qaban doonaa doorashadii madaxweynaha waxaan xildhibaanada sharafta leh ka codsanayaa mudanayaal iyo marweyn inaad buuqa iyo sawaxanka inaga yareysaan inta kadib waxaynu dhageysan doonaa khudbadaha ay noo soo jeedin doonaan musharaxiintaas oo kala ah musharax ilka case iyo musharax xaabsade haddana waxaan u yeerayaa musharax xaabsade si uu inoogu soo gudbiyo khudbadiisa دوات سمالي دوتاي درجة عيدة ما دوتاي دريال ماتي دوتاي بسم الله الرحمن الرحيم مقعيقو وعبد الساق أحمد يوسف وكما قاعدين حافظة وحانا هاي مشرح التاقن حلك مدحتنمو معاملك دوردور ستيت هاكا وحان كشيقيا وحقابتك عن قبان دونا هديان كوبوليستو حلك مدحتنمو وحقابتك وحاكوكا inaan sameyn doono biyo xidhan aad iyo aad u weyn aan wili loo arag waxaan kala rabaa inaan sameeyo dhisme wado weyn oo isku xidha tuulooyinka tuulada la yiraahdo Jeega Weyne iyo tuulada la yiraahdo Dhabar Jeex waxa qabadkayga saddexaad waxaan ka dhigi doonaa inaan waxbarashada ka dhigi doono free mudanayaal marwooyin waxa idiga codsanayaa in codkiina igu helisaan aad baan u mahadsantiin waa mahadsan yahay musharax xaabsade iminkana waxaan u yeerayaa musharax ilka case دريال ماتي دوتاي دولتنimo jir dawladnimo joog daacadii mahmuudee baarlamaanka dhammaan waan salaamay anoo magacaygu yahay musharax ilka case haddii aad ii doorataan xilka madaxtinimo ee maamulka Durdur State wax qabadkay koowaad waxa weeye inaan dhisi doono wadooyinka burbursan wax qabadkayga labaadna waxa weeye inaan soo kordhin doono caafimaad tayo leh caafimaadkana aan ka dhigi doono bilaash mudanayaal iyo marwooyin waxaan idinka codsanayaa inaad codkiina igu garab siisaan isbeddelkana doorataan labada musharax ba aad iyo aad u mahadsan yihiin iminkana waxay noo bilaaban doontaa doorashadii intay codayntu socoto waxaan ka codsanayaa xildhibaanada sharafta leh inay borotokoolka ilaaliyaan xildhibaankii magaciisa